wafdigan ballaaran uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ka hor intii aanay ka bixin caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa hadal kooban oo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sharaxaad ka bixinaya ujeedada socdaalkooga ayaa waxa uu ka hadlay in ay ujeedada socdaalkoogu uu yahay nabadeynta beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanka Ceelaf Weyn ee shaqaaqadu dhex martay waxaanu tilmaamay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay iska xil saarayso sidii ay u damin lahayd shaqaaqadaasi dhex taala labada beelood madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka hadlay arrintaasi waa kan waxaan kan shirka jadaad ugu qabanaynaa oo ummadda reer Soomaaliland u sheegaynaa fariinta ugu gudbinaynaa in maanta u baxayno sidii loo soo aftir lahaa shaqaaqadii muddada ka socotay deegaanka Ceelaf Weyn oo runtii nagu ahayd nabur foolxun oo ummadeennii isdashay ehelka ahayd muddo soo noqotay dagaalkaasi ayaa waxaan kan ummadda reer Soomaaliland sheeganaa in hawsha loo baxayo ergadina maartay ay baxday oo la diyaariyay ergadaas oo ka kooban 66 ergay oo isku jira dhaqankii oo hadduu suldaan lahaa iyo hadduu caaqil lahaa iyo culimada diinkii dalka oo dhan geeska gees waxa la go'aansaday in loo kala maqnaanin si hawshaas loo soo afjaro waana waxa loo baxayna waa risuluxa waxaan ummadda reer Soomaaliland oo sheegay dhamaantood meel joogtaba in meesha dhibaatada ka jirta in cid wanaag ku darta iyo cid baqtiisa oo nin walba dhankiisa uu maartay biyo ka shubo mooyaane inaan dabka meesha dhibaatadaasi aan cidna dab ku darsan cidna af iyo adin dhibaato ugu darsan ma ka codsan ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba sababtoo ummad istilaysa in la siyaasadeeyo in la maartay dhiiga ummadda la maartay siyaasad la geliyo oo laga faa'iideysto ma qurux badna marka waxaan ummadda reer Soomaaliland nahay nooguna soo duceeyay hawshaas waan u dhaqaaqnay waan u kabaal qabanay saacadaan joogno annaga ayaa wasiirka iyo inta halka joogta u dambaysa insha Allah wixii bari ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa inuu shirkaasi si uu furmo labadii beelood ee walaalaha meesha isku dilayna waa maartay kalsoonidoodii waa la sidaa iyaga oo kuwii loo garqaadaya iyo intii kale ehelka u ahayd sida dhaqankeena ahayd xidhaha u ahayd intuba way imanayaan halkaas la isku tagayaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in hawshaasi naga soo afjaranto oo maartay qof dambe naga dhiman ilaahay ka rajaynaynaa wafdiga madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa kamid ah dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada haday tahay xukuumadda culimada diinka waxgaradka cuqaasha salaadiinta iyo waliba ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland oo markaasi heegan u ah sidii ay shaqaaqadaasi wax uga soo qaban lahaayeen iyo sidii ay walaalayn lahaayeen bulshada kala duwan ee deegaanka Ceelaf